kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha haweenka ee warbaahinta codka gobolada dhexe. Toddobaadkan barnaamijka waxaan idinkaga soo diyaarinay stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Gaalkacyo. Dhageystayaal barnaamijka amuraha haweenka warbaahinta codka gobolada dhexe waxaa marti igu ah toddobaadkan abwaanad Sahra Daahir Mare oo ah abwaanad Soomaaliyeed isla markaana si weyn caan uga ah deegaanada Galmudug. Toddobaadkan barnaamijka waxaan jecelnahay inaan marka hore diiradda ku saarno Sahra Daahir Mare maadaama ay tahay abwaanad Soomaaliyeed oo si weyn loo yaqaano isla markaasina taageerayaal badan ku leh Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Galmudug. Inaan marka hore ugu horeyn wax ka weydiiyaan jeclahay barnaamijkan aan ku soo dhaweeyo taariikhdeeda kooban. Marka hore Sahra Daahir Mare waad ku mahadsantahay aqbalitaanka barnaamijka amuraha haweenka idaacadda codka gobolada dhexe inaad naga aqbasho waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaan siisay. Marka xigtana waxaan ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka. Maldhawahay Fardows aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa adiga iyo idaacadda codka gobolada dhexe. Haddii aan kaaga warramo taariikh nololeedkayga waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa oo ku soo qaatay ilaa dugsiga sare. kadib waxaan u soo wareegay magaalada Muqdisho ilaa aan ka gaaray waxbarashadeeda heer jaamacadeed. kadib burburkii dalka waxaan u qaxay magaalada Nairobi. kadib waxaan ka sii tagay dalka Holland. waayadan dambena waxaan deganaa dalka Ingiriiska. waxa sheegtay marwo Sahra Daahir Mare marka hore inaa Hargeysa ku dhalatay halkaas aad waqti ku soo qaadatay yaraantaadii iyo waxbarashadaadii hoose kadib Muqdisho u soo gudubtay waa sii baxday. waxaan u maleynayaa inay dalka aadan wax badan ba aadan waqti ama nasiib aad u yeelay inaad ku noolaatid oo inta badan aad qurbaha waqtigaaga ku qaadatay. hadda waxa tahay abwaanad qofka markuu abwaan yahana waxa la dhahaa waa qof af Soomaali badan oo wax badan af Soomaaliga ka yaqaana. adiguna adoo da'yar oo ama aad u yar waa wadankii ka tagtay abwaanadna waa tahay bal arintaas sida kugu suurta gashay. arintaas waxa iigu suurta gashay anoo markaas jaamacad dhameeyay waxbarashadayda ay markaas cusub tahay oo rabay inaan shaqo markaas waxaan bilaabay wasaaradda maaliyadda iyo lacagtan shaqo ka bilaabay anoo shaqadeedii wixii u xiisay qabo ay burburkii dhacay. kadib markii burburkii dhacay oo dibadda tagay waxaan xasuustay in deegaankii dalkii uu ii baahan yahay. kadib markaan arkay in maamul la sameeyay gobol wadankii uu qaybsamay ayaa waxaan isku dayay in aan dhiirigeliyo gobolada dhexe Galgaduud iyo Mudug oo ah meesha anigu ka soo jeedo deegaan ahaan awoowayaashay asalkaygii. waxaan arkay inay yihiin dadka ugu liita markaas maamul ahaan xag dhaqaale xag nolol ahaan. markaas waxaan isku dayay inaan guubaabiyo oo sameeyo hees leeyahay Galgaduud iyo Mudug. Sahra u soo laaban doonaa marka hore inaad ku dhiiratay inaad deegaankii aad dhiirigeliso oo tiraahdo wax u sheegto oo heesahaagii iyo suugaantii aad sameynayso ku caawiso. laakiin marka hore marka waxbarashadii waa ka macnaha waa baxday wadankii xagga tagtay qofka markuu dhalinyariyahana waxa lagu xasuustaa markuu xagga tago inuu isbedelo oo qofka soo dhalinyaro hadana niyadiisaba ay ka baxdo wadankii deegaankii ka soo jeeday iyo wadankii Soomaaliya oo dhanba oo asagoo dhanba af Soomaaliga oo dhibo marka xagga tagtay sidee bal dhaqankii iyo deegaankii iyo wixii u soo xasuusatay. waanu taas kuuma raacsani waayo qofka hadduu wadankiisa jecel yahay uu og yahay inay dad ka dambeeyaan uu dad ka tagay tiifiyadaad arkaysaa Soomaaliya dhibaato ka jirta gobolada dhexe dhib baa ka jira abaaraha ka jira Soomaaliya qaybo ka mid ah dawlad baa ka jirta horumar. markaas qofku markuu wadankiisa mar walba la socdo uu la xiriiro uu og yahay step by step waxa meesha ka dhacay ma iloobi karti. markaas anigu waxaan arkay in gobolada dhexe ayna cidina u maqnayn ay sugayaan qarankiina sii burburay oo dadkii ay u sii qaybsan sii socdaan gobol dawlad goboleedyo. markaas dadka gobolada dhexena ay dadku ka aaminsan yihiin fikrad khaldan oo aaminsan yihiin dad dhib badan dad burbur badan dad wadankii burburiyay dadaan dhinacna ku fiicnay. markaas ayaan waxaan ku fikiray inaan dadka tuso in aanay ahayn kaliya dad xun yihiin dad culimo leh geesiyaal leh haween leh. markaas taas ay ugu kaliftay markii qofka haweenka ama uu rabo inuu shaqo guud qabto sida inuu shaqaale meel ama ka noqdo ama uu abwaan noqdo kale sida hadda adigoo kale shaqadaasna rag baa u badan saa ognahay haweenku kuma badna abwaannimada. marka tusaale ahaan oo kale marka
abwaanimadii aa isku dayday ama istiri erayo waa samayn kartaa abwaan waa noqon kartaa qalin iyo buug qaadatay ma jirtaa qof kugu yiri adigu ama ragna ha ahaadeen kugu yiri Saaroy shaqadan ma qaban kartid haween baa tahay mana kugu suurtagalaysay bal wax kale ama shaqo kale ka raadso ama fikradaada kugu dayo inuu kaan yidhi horta abwaanimadu shaqo ima aha waa wax iska markay ugu soo dhacdaan iska qoro shaqadayda ma aha shaqadaydu waxaan bartay accountancy and management markaas waxyaalaha markaan wadankii daawado oon arko dhibka jira ayaa igu dhaliyay inaan wax qoro laakiin shaqo ahaan ima aha wax shaqo ah oo mar walba sameeyo ma waa wax markii aan arko dhib igu soo dhaca mid kale wad ogtahay dumarka waxba looma ogola rag waxba uma ogola waxay ogyihiin nimanku abwaanadu way jiraan abwaano badan oo dumar laakiin badanka hadana waxa leeyahay waxba ma sameyn kartiin waxba ma qori kartiin laakiin markay arkaan wixii ay arkayaan in lala tartami karo wax la qori karo laakiin badanka dumarka waxa uu saamaxeen muxuu ahaa inay wax sameeyaan iyo inay wax qoraan iyadoo niyadda laga jabinayo oo anigaas xitaa dagaal badan aan soo galo oo marmar la isku dayo waxayga in la tuuro in la dad ku daba joogaan si ana waxa meel la u gaaray markaas kale qofku markuu wax sameynayo wuxuu la kulmaa caqabado badan rag iyo dumarba caqabadahaas oo kale hadii aan ka sii hadalno qofku markuu sida aad sheegto kale ama haweenku ay wax soo bandhigaan fikir ay soo bandhigaan waxa jiro qofna waa taageeraya qofna waa ka hor imaanaya marka ma aragto qof kugu taageero kulito aqool way dhacday waa shaqadaada hadda halkaan inkastoo aad sheegtay in shaqadaada ahayn haddana waa xirfad kuu gaara adiga oo haddana inta badan waa haybad laakiin taas su'aal ka duwan oo kale oo ah dad waxay yiraahdaan qofku markuu abwaanimadu waa wax la baran karo maxaa ka aaminsan tahay adiga ka saar daar maraan anigu horta dad igu taageero waxaan arkay malaayiin ka soo jeeda gobolada dhexe waayo markii aan sameynay heestan wax iska ahayd riyo inay galgaduud iyo mudug labadaas gobol isku tagaan ay yihiin dad muxuu awood u leeyahay wax dhistaan dadkii inta badan intii dibadaha joogo isku duumeen waxay noqdeen galgaduud iyo mudug inkastoo waagaas ay awood hadda may jirin xitaa dadka gaalkacyo xitaa dhexdeeda jooga may ogeyn dad badan oo ka soo jeeda intii galmudugtii hore war uma yahayn oo dibadaha jooga markay heestii maqleen ayay ogaadeen kadib dadkii kale gobolada ilaa ceelbuur ilaa galgaduud iyo mudug waxay ogaadeen inay dad isku xiran yihiin oo isku meel ka soo jeeda markaas taas dad muxuu taageerayaal badan ayaan dibadda ku leeyahay iyo dalka gudihiisa oo taasina waxay keentay inay dadkii isku duumaan midan kale ee marka hore intaadan waxa ay sheegtay galmudug aad bilaabin ama galgaduud iyo galmudug oo kale aad bilaabin inaad sugaan u sameeyso gobolada dhexe inaad abwaanad hore ahayd heeso badan aad sameysay oo ama arrimo kale jacayl ka hadlaan ama wadineed kale ka hadlaan marka bal arintaas sida iskugu soo day kugu horeysay aad abwaanad noqotay astri Saaroy markaan abwaan baata wixii ama sugaanti ku bilowday ama hees noqoto horta maxaa galgaduud iyo mudug heeso hore ka horeeyay oo qaar xitaa radio Muqdisho loo qabtay laba heesood oo mid ahayd allow ay dadkeenu qolqolo ku duulkii qabiilka iska daayay iyo mid ahayd markii Mareykanku laayay dadka leeynay la duqeynay ahayd gaalada dhibkeedii labadaas ayaa jirtay laakiin dadka aad uma yaqaanaan waxa ka xoog weyn kuwa dambe gobolada kuwaas dadku aad taageerayaal badan ku helay laakiin Soomaalida aad tira qabyaalada iska daaya maxamidnimada ma kala jecel waxaas laakiin waayada dambe waxa badan gobolaysigii marka tusaale kale heesaas marka sameysay sida macna sida guud uga hadlay sheegto sida labada heesood hadda hore ay sheegto heesaas marka sameeysay maxay ahaayeen magacyadooda iyo erayadooda iyo hees mid waxay ahayd allow ay dadkeenu quwadeena guud iyo qarankan lahayn iyo quwadeena guud iyo qarankan lahayn iyo maqiil baan u weyno qabiil baa dhantaale qoys iyo mareera loo kala qoqobayo wax miran badan baad waa hore ahayd muddo dheer baa ka soo wareeg markaas dadku markay maqlaan way qeyroon way jeclaayeen fanaaniintu xitaa fanaaniin badan way fiican tahay anigu aan qaad laakiin dadka wax saameyn kuma lahayn waxaan soo laabanaynaa heeso badan oo waxa jira gobolada dhexe u sameysay tusaale ahaan oo kala ka soo qaadno heesta galmudug waxa sameysay xilli aysan galmudug iyo galgaduud aysan mideysnayn oo laba maamul ay u kala sameysnaayeen
marka sheekadu ma wixii matiila lahaaba abwaanintu waa fikirkooda waa dheeriyo xilli hore wax sii arkaan maxaa yeelay iyadoon labada maamul la isku darin ba adu isku darta ka heesta aan bal heesta iska warna saameynta gaarka kugu leeyahay waxa iskugu daray horta galgaduud iyo mudug dadku badanka isku sibay ka aaminsan yihiin cid kas waana meel Soomaaliya oo dhan ay degan tahay Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay meel qaran laga abaabuli karo way qabiil kasta degan anna waxaan u arkayay in ay tahay meel midnimadii galgaduud iyo mudug hadii la yiraahdo meel ay Soomaaliya oo dhan ay ku midaysan tahay qabiil kasta hadda markuu heesteeda maqlo uu taageera hees markaas meel qabiil uma arkin waligeed in kasto ay dadku galmudugtii hore qayb ahayd aniga waxa ila ahayd galgaduud iyo mudug guud ahaan mid magac guud oo Soomaalidaas degta oo dhan inay midoobaan inay maadaama qaranka burburay in ay iyagu wax ay leeyihiin dhistaan kadibna ay qaranka dhistaan marka baaq wuxuu ahaa aasi farayso dheesay bal galmudug iyo galgaduud ma kala maarmaane galgaduud iyo mudug ha midoobeen iyo heesta faasay ka hadlaysa ereyadooda kala hadii kuwa ugu muhiimsan aan uga sheegtay ma ujeedada dhan waxa weeyaan dadku waxay ka aaminsan yihiin fikrad khaldan waa dadkii wadanka burburiyay mar walba madaxda oo dhan halkaas ka soo jeeda generaaladii wadanka wax kasta markaas anigu waxa ujeedadeedu ahayd dhinac kasto fiican way leeyihiin dhinac xun kaliya ma markaas adigu xitaa dadku dhageysin kartaa marka waa dhinac kasta ka hadlaysa dhageystayaasha waa soo qaban doonaa waan dhageysan doonaa heesta galguduud galmudug calankeena guud suran kuwa gaarka ka haye ummadka u ahaayo calankeena guud suran kuwa gaarka ka haye ummadka u ahaayo garyaqaana odayaal oo ku doonsha taladiyo garyaqaana odayaal oo ku doonsha taladiyo gaar bay u marka heesahagu heestas kaliya kuma eka ku dheeraanay way fara badan yihiin heeso badan baa jira marka kuwaaga kuugu muhiimsan inkastoo qofka markuu asaga waxa leeyahay is u kala duwaneen oo wax kuwiisoo dhan ay muhiim u wada yihiin wallahi heesaha gobolada dhexe way badan yihiin kuwa waxaa jira ka hadlaya midnimada kuwa ka hadlaya muxuu ahaa horumarinta qaar hubiyo dekada sidii loo furi lahaa qaar ka hadlaya dhaqaalaha way badan yihiin qaar ka hadlaya heeso badan oo wacyigelin weeyaan markii la dhageysto ayuun baa la fahmi karaa laakiin hadda aad bay u fara badan yihiin dabcan heestaas galguduud galmudug waa tahay markaan haddii halkaas aan uga soo laabano heesihii gobolada dhexe ku saabsanaa aan dib ugu laabano dhankii nolosha qurbaha iyo maadaama aad mar dhow dalka aad timid bal dadkii ugu baaqalay dadkii qurbaha jiray oo had deegaankii waa timid wax badan kuleeto waa aragtay inkastoo waqti dheer hadana aad joogin oo si wanaagsan aad ugu soo socon horta dadka qurbaha lagu dhibay dadku aad bay ugu dhibaataysan yihiin way wadankoodii ma aha waa wadan ay ku cusub yihiin waligoodna lama qabsanayaan hawo ahaan iyo dhaqan ahaan dhinacna lama qabsano waa meel ay mar walba dhib ku hayo midda kale ana waxaan hubaa aan aaminsanahay dadka dibadaha jooga waa dadka wadanka dhisay mar walba qof kasta iyaga kamidii waxbuu soo diraa mid dhul gatay mid reer beela kama war la wadankooda aad bay ula socdaan markaas aniga kulay igama baahna hadda waxa sameeyay mar walba ka warhayo reer qof aan guri wadankaas jooga ama shaqay ama uu shaqay oo lacag dirin Soomaaliya ma jiro qofka ugu yar waa qofka reer kaliya wuxuu dira ka kale afar reer shan reer markaas wadankooda way og yihiin waana dadka anu ajnabiga kale markii la barbar dhigo waa dadka ugu fiican Soomaalida wadankooda markaas haduu wadanku nabad noqdo way soo noqon lahaa laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ka bareena inuu wadanku nabad noqdo kulli hadda horumarka uu socdaa adaada waan tagay gaalkacayna haddaan jooga inta u dhaxaysa in kasta abaara jiraan colaada jiraan haddana ilaahay waxaan ka bareynaa inuu nabad geliyo
insha Allah marka hadii halkaas qurbaha aan uga nimaano abwaanimadii dib u soo laabanayna abwaanka iyo waxa la leeyahay dhaqanku waa iska dhow yihiin marka adiga tusaale ahaan heesaha dhaantooyinka kale inaad samaysid ama xarun dhaqan oo kale oo waxyaabaha dhaqanka Soomaalida ama hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigo kale iyo marna isku dayda fikirkaas ma kugu dhashay heesaha dhaantada mid galmudug aan sameeyay oo galmudug geeyigeedu leeyahay inaad maqasheen kulli waad maqasheen baan malayna iyo mid kale waan isku dayay dhowr heesoo dhaanta haddana kuwa cusub baa jira oo wali soo bixin oo sameeyay hidaha iyo dhaqanka kale ka waran hidiya dhaqanka waxaanad arkay sidii dhaantadan iyo wadan jacaylkii waxa soo dhan waxa kamid hidiya dhaqan qofan hidiya dhaqan aqoon wax ma sameeyo wadankiisa markaad wax sameynaysid waa inaad wadankaaga jeceshahay wadanka hidiya dhaqanka wax kasta hadda muxuu ahaayay haddii aan awood u leeyahay waxaan soo celin lahaa waxyaalihii waayadii hore dheelihii muxuu ahaa raarkii wixii waayadii hore la dhisi jiray arrimahaas hadda ma ku qorshaysan yihiin insha Allah waan isku dayay inaan dib u soo celiyo hadda dhaqankii horumarisid maadaama abwaanimada iyo suugaantii dhaqankii iyo qaabkii aad ku cabir lahayd xirfadeeda leedahay waxyaalo hadda ana dibadaha ku wax Soomaali hadaan arko hidiga dhaqan ama dheelahaad wax kasta waan haystaa wixii arkana waan soo urursada markaas hadda waxaan arkay inuu sii tirtirmayo sii baaba'ay markaas waa muhiim dadka waxaan kula talin lahaa Soomaali inay dhaqankooda haystaan inay waxyaalaha caagadaha caanaha lagu shubay inay iska daayaan ay ku soo noqdaan dheeshii iyo haanti hadda marka inkastoo adigu markii horena aad Soomaali si wanaagsan ugu barbaarin waxyaabaha ah sidoo kale dhaqanka hadda deegaanka dib u soo laabtan ka soo xaalad xun la iskaga jiro hadana waxyaabaha as leedahay ka saar ahaan waa u baahan taas marka dhaqanka xagga marka la fiiriyo ama dhiilaha noqdaan ama caanihi iyo kale wallahi horta dhaqanku wax kasta wala burjikayaasha oo loo baahan yahay muxuu ahaa dhiilaha raar darin salad waa wax kasta oo Soomaalidu haday xitaa qaadooyinka waxa hadii wax saxanka xeerooyinka wax kasta waxay gacantooda ku sameeyeen laakiin waayadan dambe waxa jirta wax kasta wax dibadda laga koobo dadka reemiyigi hadda waa reemagaal taasna aad baan wax waa in dad reemiyiga la helo waxyaalihii hore waayadii hore anoo yar baan waa mii tagay wixii waayadii aan arki jiray hadda ma jiraan waxba xusuusta ku ahaa miyiga marka waagaas tagtay maxaa tadaba jir baan ahaa waxaan garanayaa haan waxyaalihii caanaha dhiil geeli wixii oo dhan laakiin hadda wixii oo dhan ma jiraan reemiyiga waa reemagaal subaxdii saacan jaalada waxa arkaysaa waa dhibaato markaas wixii hore inay ku noqdaan baa fiican hadda Soomaaliya hadda joogtaa deegaankii waa dib ugu soo laabatay qorshahaaga hadda ugu weyn inta anaha waxa qorsheynaysid ma hadda inaad dib u laabatid rabtaa in waxyaabo kale ku dhaqaaqdid rabtaa ku qorsheysay horta ayaa hadda waxaan rabaa inaan deegaanada inta ay dhiman inaan maro kadib inaan eego xaaladda dadku ku nool yahay sida yihiin kadib waxaan jecelahay inaan Muqdisho ku noqdo inta ka dambaysa Ilaahay baa og laakiin hadda intaas wax qorshaysan si wanaagsan gabagabadii barnaamijka isla sii gaarnay waan saarada armire maxaa ku baaqaysaa maadaama deegaankii oo abaaraysan timid ilaa cadaado inaad soo martay oo safar dhanka dhulka ku soo martay ilaa gaalkacyo inta u dhaxayso waxyaabaha soo arkay waxyaabo badan oo ka qarsoon baa jira maxaa baaqo jeedinaysaa horta muxuu dadka galgaduud iyo mudug waxaan u arkaa dad karti leh oo horumar weyn sameeyay hadda magaalooyin badan waxa ka jira horumar aad u weyn haddana sidaas ay tahay waxa jira abaaro muxuu ahaa roob la'aan waxaan jeclaan lahaa dadka xoolaha haysta aad u badan yihiin dadka aan waxba haysan aad bay u badan yihiin markaas kuwa wax haysta inay kuwa waxba haysan caawiyaan ayaan ku guubaabin lahaa waayo dadkan masaakiinta waxba haysan iyo qofka taajirka wuxuu sii raadinaya xoolo dheeraada miskiinkiina meel uu ka raadiyo ma laha markaas waxaan u maleynayaa roob la'aanta colaadda dhibka waxaan oo dhan waxa uu keenayaa naxariis darrada markaas waxaan soo jeedin lahaa dadka wax haysta dadka masaakiinta u gargaareen waxyaalo Ilaahay siiyo wax ka siiyaan taasaan soo jeedin ugu dambeyntii mid ka mid ah heesaha aan jeclahay barnaamijkan aan ku soo gabagabeeyo heestaha jeceshahay ama kuwii hore ha noqdaan oo wadaniga ahaa ama heesihii u gaarka
waxaan kusoo gabagabayn lahaa heesta ay qaadayso fanaanada weyn fartuun axmed sahal fartuun birimo oo la yiraahdo ugu celeeya nabadda dhaqaaluhu hagaamuro. waa tahay dhageystayaal guud ahaan waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuraha haweenka toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti nooga ahayd abwaanada Soomaaliyeed Saarada Harmire. waan u mahadcelinayaa waqtigeeda. waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijkii farsamo yaqaanka anigoo Firdawso Maxamuud Saal ayaa barnaamijka halkan kaga soo jeedinayay. tan iyo barnaamij caankan oo kala toddobaadka soo socda intaan dib ugu kulmi doono haddaan Allah awood la ka helno waxaan kaga tagaynaa heestii ugu celeeya nabadda ee Amana.